xaaji axmed sheekh muumin oo ahaa caalimkii ummaddan gobolka dhagaxbuur cabdiraxmaan sheekh muumin oo isaguna ahaa dirawal xoogsada ah cabdullaahi cumar jubbad oo ahaa xogayihii degmada dhagaxbuur been awisuf kaariye oo ahaa qoraa wargeyskii la odhan jiray adduun waa sheekiya shaahid maxamuud ismaaciil cabaade oo bulbul lagu magacaabi jiray oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii degmada dhagaxbuur mahad muuse ibraahim oo ahaa xubin ka tirsan baarlamaanka degmada dhagaxbuur sheekh maxamed saalax oo ahaa isaguna sheekh ganacsada ah maxamed cumar makaahil oo lagu magacaabi jiray qool oo ahaa xoogsade axmed shaafi baaruud oo ahaa dilaal sayla jooga axmed maxamuud cilmi axmed dheere lagu magacaabi jiray oo isaguna ahaa dilaal sayla jooga maxamed axmed ibraahim oo ina managalo la odhan jiray oo isaguna ahaa beeraley axmed haadi dacar oo isaguna ahaa beeraley cabdullaahi cabditaflo oo isaguna ahaa aqoonyahan cumar cabdi risaaq oo isaguna ahaa nin geejira oo xoolo saylada intuu keenay isagoo kasii baxaya la qabtay cabdi cali nuur oo isaguna ahaa nin safara bashiir cabdi aadan oo isaguna cooshad ku haysa magaalada dhagaxbuur ganacsada ahaa maxamed yuusuf buxul oo isaguna habeenkaa la joogo isaguna nin ganacsada ahaa cabdi nuur oo isaguna nin safara ahaa intaas waxaa ahaayeen 92 ilaa 94 taariikhda milaadiga dadkii la qabqabtay bay ahaayeen waxaa ka dambeeyey 4 wiil oo labana ay xer ahaayeen labana ay macallimiin iskuul ahaayeen oo 2009 qarax ka dhacay magaalada dhagaxbuur iyagana lagu qabtay oo iyagana saas kale loo waayay waxayna kala ahaayeen cabdiwahaab siyaad cabdi oo nin xerow oo cilmiga masaajidka weyn ka baran jiray khadar maxamed oo isaguna ahaa xerow isaguna cilmiga baran jiray axmed sheekh cumar oo leyd lagu magacaabi jiray oo isaguna macallin iskuul ahaa maxamuud rashiid sheekh nuufe oo isaguna macallin ahaa iskuulka iyagana waxaa la waayay 2009 taariikhda milaadiga markaa waxaan nahay dadkii ehelkooda ahaa dadka meesha fadhiya oo dhan dhammaantood walaaladood xaasaskoodii carruurtoodii ayaanu nahay dhammaantana dadka meesha fadhiya markaa waxaanu ka codsanaynaa dowladda deegaanka soomaalida iyo dowladda federaalka etoobiya dadkaas in naloo baadi doono oo jeelasha naloo baadho oo rag iyo ruux dadkaas noloshoodii iyo dhimashadoodii in naloo soo kala caddeeyo ayaanu ka codsanaynaa dowladda federaalka iyo dowladda deegaanka soomaalida asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu